waxaa maanta la daahfuray qayb ka mid ah dhismaha dekadda Garacad taasi oo ah jambiga ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha waxaana ka soo qayb galay xafladii lagu daahfurayay ganacsato aqoon-yahano mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddiga dhismaha dekadda Garacad qaybta maanta la daahfuray ayaa waxa ay tahay jambiga ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha waxaana la sheegay muddo 3 bilood gudahooda in dhammaystiri doono jambigaasi isla markaana ay jambigaasi ama xaydaabkaasi maraakiibtu iyo doonyuhu ay soo galaan sida marka la rarayo ama la dejinayo waxayna sheegeen in 3 bilood gudahooda ay ku soo xiran doonaan maraakiibta iyo doonyaha mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxa ka mid ah Cali Jaamac Alifood oo ka mid ah guddiga dhismaha dekadda Garacad isagoo sheegay in tani qayb weyn oo muhiim ah ay ka tahay dhamaystirka iyo dhismaha dekadda Garacad goobtaana taaganahay oo ah dekadda Garacad waa munaasabad loogu talagalay daahfurkii temporary berthing ama jambigii ku meel gaarka ahaa oo loogu talagalay inay ku sii socdaan hawlihii shaqo ee wax soo dejinta oo dekadda ama u adeegto waxay baahideeda ama u adeegto baahida guud ee dantii laga lahaa dekaddan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan lahayd kale culimadiin ganacsato iyo aqoon-yahano kala duwan ayaa amaanay halka uu marayso dekaddu waxayna sheegeen inay tan rajo weyn u tahay maalgelinta iyo horumarka dalka Soomaaliya waxay yiraahdaan wixii raku tashado rabbina aqbalo waa rumoobaan tanaad hadda taagantiin baa kamida rag baa ku tashaday rabbina waa aqbalay rooyadii aad ogeydeen hadda maanta dhabbay isu bedeshay waad u jeedaan hadda maanta dekad baa dhisan afarta dhinac waxa naga xigta bad baa naga xigta waa u jeedaan xagga waqooyiga bad baa naga xigta koonfurta bad baa naga xigta bariga bad baa naga xiga albaab yar baa noo bannaan oo kii aan ka soo galay ah inta kale waa bad weey maadaama ilaahay awoodaan ina siiyay waxaan ku xijisiinaynaa wadooyinkii iyo eeriboorradii Soomaalida xoogaa waxa lagu yaqaanaa sabirkeenu ma badna laakiin dadnimadeenna iyo kartideenna iyo fariidnimadeennu waa foodo hore weey haddii xoogaa fariidnimadeenna aan sabir ku darsanno wax walba anaga qabsanayna ciidina soo gaadhaysana ma jirto anigoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka waxaan cadeynayaa in aanu meesha Garacad iyo dekadda Garacad nin Soomaaliya nin Soomaaliya uu ka xigin dhammaan in la wadaago in la wada leeyahay in lagu wada ganacsan karo in la wada maal gashan karo dhammaan wax walba oo qof bini aadana oo wado oo wanaaga waa ku soo dhaweynaynaa waxaan kaleeto oo u ballan qaadaynaa annagu haddaanu nahay odayaasha inaanu la shaqayn doono wax kasta oo nala kaga baahdo oo wanaaga inaanu odayaasha ku soo dhaweyn doono odayaalahan inaanu soo dhaweyn doono dadka hantidooda dhowri doono soo dhaweyntooda iyo qaranaysa walaajintooda aan ka qayb qaadan doono waxaanu leenahay ku soo dhawaada Garacad oo maanta meel wanaagsan maraysa oo waqti yar kadib haddii alla idmo in maraakiib iyo doonyo ay ku soo xirtaan ay hadda wax yar ka dhiman tahay haddii alla idmo sida injineerada iyo qaranaysa dadka hawsha wada ay cadeeyeen dhowr bilood kadib waxa ku soo xiran doona maraakiib iyo doonyo ganacsigiina la imaan ka dhaan inta ka hadhay baad maal gashan ka dhaan ku soo dhawaadaanu leenahay gudoomiyaha magaalada xeebta ku taala ee Garacad ee dhismaha dekadda uu ka socdo ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan inay dhawo 3 bilood gudahood ku soo xirtaan maraakiibta iyo doonyuhu maanta waad u jeedaan dekadda Garacad waxay maraysaa sida injineerada u sheegeen meel maanta laga faa'iideysan karo oo wax laga soo degi karo waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed dekadani waa dekad Soomaaliyeed Soomaali ma kala xigto waxaan ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo ama maal gashanaysa ama ka ganacsanaysa wax kala degaysa ama sideed ahaanba Garacad u degaysa waxaan leenahay ku soo dhawaada waxaanu ballan qaadaynaa haddii Allah awood la idmo anoo ku hadlaya afka maamulka ilaa heer Puntland waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadgelin doono ammaan siin doono degaan siin doono naftooda iyo maalkooda soo dhaweynayno si walaaltinimo Soomaalinimo qadarina ay ku jidho baan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo rabta halkaan in ay ama degto ama ka ganacsato dhismaha dekadda Garacad ayaa waxa uu yahay mashruuc weyn oo maalgelineed oo isku tashiya kaasi oo ganacsato u dhalatay deegaamada Puntland ay maalgelinayaan waxaana la filayaa in 3 bilood gudahood ay noqon doonto dekadda labaad ee Puntland taasi oo Soomaaliya oo dhan anfici doonta dhinaca horumarka iyo wax soo dejinta intaba Quraan Maxamed Cabdi Puntland TV Kalkay